بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقت كوبان إن شاء الله تعالى بنسكو ديدونا إن نهضله موضوع كصابسن التزكية. في اللغة العربية كلمة التزكية لما معناه في عربي قصة أرورتاه أي علماء الشيغان معنى الزيادة والنماء، هي معنى الطهارة بين هذا شيء إنه طاهر نغضه أو حماه هي وحاصلنا لقريبه، هي إنه زيادة يكون عضو كره أما بركوبه هذين سكلوا تلمامه. هلك كان علماء السلوك وحيقدن لين انت وبضن له ونفت بني آدم كا والله طاهر عما يشوبها وحي فالحميني وفك بني آدم كا أو وحي نقائصة أما هو سلقي أما الليدي أما فالحميني أما وحيالي in laga maydho oo iska tahiro, iyo inuu xagga khayrka uu u koro oo ziyaado uu wado istiqaamada iyo toosnaantiisu ay korto ilaahay uu ka gaarayo bay yidhaahdaan darajatul ihsaan. sidaa ogeed culamaa suluuk markay masaladan sharxayaan waxay ku tilmaamaan laba eray oo kooban. waxay dhahdaan taskiyadu waxay samaysaa wax loo yaqaano altakhliya wataxliya. takhliyadu waa sidaynu soo sheegnay nafta oo waxyaabaha xunxun laga dhowro ama laga nadiifiyo, oo waxyaabaha jira nafta bini aadamkaa hadday u weecato shar aada u badana sida xaasidnimada, riyaaga iyo istuska, kibirka iyo isla weynida, adduunya jacaylka iyo wixii la noocee radaa'il shareecada ay ku tilmaamtay. cagsigeeduna waxa weeyaan inuu qofku isku qurxiyo oo ku labisto libaasi taqwa oo ah wixii ilaahay raalli ahaanshiyihiisa keenayay ama wixii fiicnaysiinayay dhaqanka isaga iyo alle u dhaxeeya iyo dhaqanka isaga iyo aadanaha u dhaxeeya. eraygan waxa ku macno dhow eraygan la yidhaahdo atarbiya. culamada badh isku macnay ka dhigaan. tarbiyadu waxay yidhahdaan waa nafto kamaalkeeda la gaadhsiiyo halka ay ugu sarraysa, laakiin fii nadari waxaan u malaynaya inay kala macno ballaadhan yihiin, waayo tarbiyada waxyaaba aan soo gelin taskiyadaa soo gala, maalan التربية العقلية والتربية الجسدية وكذا، لكن تسكيده انت بدن ووح نفطي النقل كيدي الروح دي أخلاقيات كيدا كوكوبا. علماء دبر وحي هذا التطهير أو التهذيب أي الله معناه، لكن وحلقا يابا إن يكون كمعنى قابين وهي التطهير هو حق الدنس كي نجاسي وحا حنون لقم يروح، لكن دينعينا ماغا iyo koritaanku kuma jiro. tahdiibkuna waa la mid, tanqiya mima yuciib bay yidhaahdaan, waa shaygoo laga safeeya wixii caabeynayay. soo duuduub oo eraya kan waxay culamaa nafsi markay ka warramayaan ay ku tilmaamaan, ama culamaa suluuk baan u jeedaa, wuxuu cagsi u yahay bay yidhahdaan atadsiya. tadsiyadu waa idkhaalu shayi fi shay أو تحت الشيء، شيء هذا حقه سكجلسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب إلى المامي. مركي لقوا الرمي دو مركي أي حبل نولولين شرين معيدو كأسبا لقوت المامي. تتسيدنا ونفط أو وحي حقيري أما الليدي أما حمي هذا موجيني أد كل قنصيصه. haddaba eraygan haddaynu intaa ku soo dhaafno macnihiisa guud ee la tilmaamayo si aynu u fahmno waxaynu u soconno o dhan. taskiyadu waa laba nooc bay dhahdaan.
midii waa nooc fitriya waa abuurka ilaahay bila aadamka ku abuuray walaqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim siiba inta uu caruurta yahay ee aanu waxweecadka baranin oo nebi muuse markuu khidir la hadlayay waa kii ku tilmaamayay aqatalta nafsan zakiya bigayri nafs waxaad dishay naf zakiya ah ay muzakaata naf daahira naqaale aan dembi loo qorin ilaahay taqaano maskiinada ama malagu markuu maryam la hadlayay waa kii ku lahaa inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya taa maaha taynu inagu u soconnaa taynu u soconnaa waxa weeyaan ataskiya almuktasaba waa taskiyada qofku uu shaqaysto ama la kasbado oo ilaahay qur-aanku leey waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih wa ila allahi almasiir fi suurati faatir waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih ninkii isطahira ee khayrka isku barbaariya ee naftiisa rabeeya fainamaa yatazakaa linafsihi baa ilaahay leeyay sideedaba waxay dhahdaan cilmigu waa laba jahad cilmi nadariya ama si kale haddaanu dhahno information ah ama macluumaad ah ama ogaal ah inaad wax garatid wax ogaatid iyo aqoon dadka lagu tababaro oo u baahan farsamo iyo xeelad iyo tababar iyo training u baahan iyo tadriib taskiyadu bay yidhahdaan waa baabka labaad waa baabkan fanka lagu tilmaamo fi luga alcarabiya alcilmu walfanni bay yidhahdaan fanku maaha kan heesaa kama warramaya soomaalida fanka u taqaano waa alfanni alcarabi luga alcarabiya waa fanka loo yaqaano marka waa qofka bini aadamka oo naftiisa la tacaala sidii ay u qumanaan lahayd inta badanna kama maarmo qofku inuu cid rabayso helo haddaba arrintani inay muhim tahay waxaa tilmaamaya qur-aanka meel qura ayay kaga jirtaa ilaahay oo 11 jeer dhaaranaya rabu samaawaati walard oo hadduu wax inoo sheego qowluhu sidq warkiisu dhab yahay ayaa 11 jeer dhaartay suu masalada tan u tilmaamo suuradda aynu wada akhrino waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha walleyli idaa yaghshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha intaas baa ilaahay kusoo dhaartay ay mufasiriinta badh waxay tilmaamayaan waawiyada meesha ku jiro dham inay waawulqasam yihiin haddaad doontana waawga labaad mid kasta waawulcataf waad ka dhigi kartaa calaa kullin ilaahay intuu sidaa u dhaartay buu wuxuu tilmaamay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaa liibaanay man zakaaha ay man taharaha wanaqaaha wahadabaha wa aslaxaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyahy qofka naftiisa daahir yeelay wanaajiyey kobciyey islaamnimada ku dhaqay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla waqad khaaba man dasaaha baa ilaahay leey kii aasay ee xumaha iyo dhaqan xumada ku aasay ee xaqiray naftiisii waayo nafta bini aadamkaahi marna way kortaa oo mar kastoo la dhilo ereyga dhilitaankiisa ma taqaanin usha markaad goosato xoolaha intaanaad ku kaxayn waa la dhilaa wixii qodax iyo kurtina laga dhilaa si ay dee neefka wax kaaga yeelin nafta bini aadamkii qodxay iska leeday waxay jeceshay in la ammaano waxay jeceshay mararka qaarkood inay muuqato waxay jeceshay xoola inay hesho waxay jeceshay wax badan waxaasi wuxuu u baahan yahay qofku inuu la tacaalo oo dhilo oo ka fiiqo ilaa ay naf quman ka noqonayso o ilaahay sharcigiisa ku qumanaanayso haddii la dhili waayo xumaha xag kale uga dhacda ilaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila
ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu. ilahay wuxuu ku tilmaamayaa waxa dhulka kor socdaba waxa u shar badan mushrikiinta, waayo xumahay xagga kale uga dhaceen. arrinkani muhiimadiisu waxay culammadu yidhahdaan waa wadiifatu alambiyaai wa rubcu risaala bay ku tilmaamaan. taskiyadu waa shaqada nebiyada loo soo diray. ilaahay nebiyada waxyaabuhu usoo diray taskiya ka mid ah. sida awgeed ayuu nebi muuse fircoon markuu yimi muxuu ku lahaa, faqul hal laka ilaa an tazakkaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha. waxa uu ugu yeedhayay fircoon waxay ahayd taskiyat alanfus, naftiisa inuu tahiro oo najaasiye xumo iyo waxa kanuu ka tahiro. waxaana loo tilmaamay waman yaأtihi muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakaa baa ilaahay. sidaa ogeed ayuha alaxiba, culimmadu waxay dhahan waa rubci risaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibay 4 meelood marka loo qaybiyo meelba ah bay leeyihin mas'alada tan. oo ilaahay markuu u manno sheeganayo muslimiinta 3 aayadood ee loogu manno sheeganayo iyo aayadda nebi ibraahim uu ku ducaynayo, 4 aayadood ee qur-aankii waxay ku soo arooreen mas'alada tani inay tahay rubcu risaala. kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim. ambiyada 4 shay baa loo soo diraa. ka koowaad waxa weeyaan talaawat lkitaab, qur-aanka inuu dadka ku dul akriyo. qur-aanka inuu ku dul akriyo macnaheedu waa maxay? waa inuu xujada ku oogo. dadka badh baa ilaahay ogiyey aan rabbiba rumayn doonin, fii cilmi lgeyb ilaahay ogiyey, biikhtiyaarihim ku diiday inay ilaahay rumeeyaan. oo hadday sidaaba ahaayeen maxay risaalada kuwan u tiraysaa? waxay u tiraysaa aakhiro inaanu cudurdaar helin in xujada lagu oogo. marka ambiyadu koow waxay u yimaadaan dadka inay xujada ku ogaan, macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. ilahay wuxuu leeyay cidna ma cadaabno xataa nabcatha rasuul, inaanu soo dira mooyaane. waxaa loo soo dirayna lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul. marka shaqada koowaad ee ambiyadu ay qabtaan waxa weeyaan dadka inay xujada ku dul ogaan. xujaduna qur-aankay ku dhantay. qofku dadka badh baa is ihahdaa dadka haddaad rabto inaad hanuunse falsafad u akriyo, saynisu sheegiyo kanu sheeg waxba kama jira. waxaa ilaahay xujadiisu kitaabkiisa ku taalla. hadday daliil caqliya tahay, mid maangala tahay, mid cilmiya tahay, mid kasta tahay, qur-aanka sheegaya. xujo waxa ugu filan qofka markaa qur-aanka in la fahamsiiyo, qur-aanka inuu fahmo ayaa xujo ugu filan. mid cad iyo mid madow iyo mid professor iyo mid miskiina iyo mid caalima iyo mid reer baadiya waa isku mid. cinda allahi halkay ku jirtaa. marka shayga koowaad ee rususha loo soo diray waa yatluu calaykum aayaatina, inuu idinku dul akriyo aayaadka yaga oo inuu xujada dhammaantiin idinku oogo. dadku markaa 2 fariiq bay noqon doonaan, kuwa ilaahay raacay iyo kuwa ilaahay diiday. kuwa ilaahay diiday iyaga xujadaasaa lagu wadaya. kuwa ilaahay raacay markaasee aqbalay qadiya thaaniya ugu muhiimsane markaa uu u baahan yahay waa maxay? waa wayuzakiikum wayuzakiihim. waa taskiya, waa masalada aynu ka warramayno. waa in qofkan la tahiro oo xumaha laga tahiro. oo xumaha laga tahirayo waxaa ugu horeeya ilaahay keyrkiioo la caabudo, ilaahay keyrkiioo la baryo, ilaahay keyrkiioo la isu dhul dhigo. ra'su lkhatii'a waa kufr, dabeetana macaasida waaweyn, kadibna dhaqan xumada isaga iyo bini aadamka dhex mari karta, kadibna waxa allaaliya wixii qofka bini aadamka naqiisa ku ah, wixii xumo ku ah oo dhan waa taskiya. mas'alada 4 iyo 3 markaa iyagu waa tacliim alkitaabi walxikma. qofka in la baro aqoon
in la baro ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. iyagu waa cilmi. in badan oo dhallinyarada ka midi waxaad moodaa in ahmiyadda la saaro tacliim alkitaabi waalxikma. haddaad aqoon barato asaanada rabaysnayn, jafaafnimo iyo dhaqan xumo kaa badanaysa, iyo dadka inaad diintaba kasii fogeysa inaad ugu yeedho daaya. marka asalka waxaa ah caamo iyo culamada dadku inay musakiin noqdaan. dadkao dhan waxaa saarani laba ku ah bacda alxuja, waa in dadka la tahiro, naftooda iyo quluubtooda la tahiro, ay noqdaan dad mutawaadiciina oo ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ku beeran tahay, oo aan khalqiga iska weyneyneynin, oo aan adduun jacayl u noolayn, oo aakhiro u muuqato, oo wixii laga rabay oo dhami. intaa kadib baa waxaa lagu tilmaamay culamadu yidhaha wayucallimuhum alkitaaba waalxikma, in la baro xikmada oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah iyo kitaabka alle subxaanahu watacaala. idan waxay dhahdaan afartii shay ee risaaladu ka koobnayd ee ilaahay ugu manno sheegtay, manno sheegadku yacni ugu gallad sheegtay, ilaahay nicmadu dadka siiyey uu ku tilmaamay rubuceed. afarta mid ahaani waa maxay? waa masalati taskiya. casriyada dambe waxaa yar dad murabbiina oo dadka taskiyeeyaa yar. macluumaadku waa badan yihin, macluumaadku waa badan yihin. cilmu suluuk dhigistiisa iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa waqtiyada dambe aada buu u yari. laga yaabaa culumta kale fiqi matalan markaad barato, nacam wixii wax kaaga asaxayeen ama kaaga burayeen maad baranaysaa, wixii xalaal iyo xaaraan baad kala baranaysaa. laakiin matalan salaadu waxaana way ku asaxdaa, waxaana way ku burtaa. laakiin inay dhaqankaaga doorisaa waa masalo ka baxsan burinta iyo asaxidda, waa masalo ka baxsan. inaad ku khushuucdaa waa masalo ka baxsan. inay salaadii rabbi rabay noqoto ee maqsuudkeedu ahaa tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar inay gaadhaan waa masalo u baahan rabaayad kale. walidaalik culamadii waaweyneed hore markay wax ka baranayaan umay iman jirin inay macluumaad ka qaataane waxa uga muhiimsanaa samtiga iyo dhaqanka iyo zuhdiga iyo suluuka inay ka bartaan baa ka muhiimsanayd inay ka qaataan macluumaad iyo information. yani jaamacadaha la tago information baa laga soo hela, waa macluuma, laakiin transformation lagama helo, isbeddel ma sameeyaan. qofkana waxaa ka muhiimsan inuu macluumo helo inuu isbeddel samayn karo. macluumadu markaasay wax taraysaa, markay macluumo kasta dhaqan isu beddelayso ayay qiimo leedahay. laakiin hadday noqoto waxaad madaxa ku gurayso un, laakiin hebel un aad iska tahay, haddaad 10 kitaab dhigato iyo haddaad 1 kitaab dhigataba haddaad hebel tahay oon waxba iska kaa gadiinaynin, noloshaaduna isbeddel samaynaynin, macluumaadku xujay kugu yihiin, wax tarba kuma aha, waa xujatun calayk. aakhira aday dhib kugu haysaa dheeraadka yaraad baratay ee dhaqanka loo bedeli waayo. sidaa ogeed baa ducaadii nebi maxamed waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii saxiix muslim ku yaalay jus ka midaynu soo qaadiye, allahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaha. nebi maxamed baa ilaahay bariyo muxuu weydiisanayaa allahuma aati nafsi taqwaaha, ilow naftayda taqwadeeda iyo dhowrsanideeda iyo alla kacabsigeeda sii. ilow adaan ku weydiisanaynaa inaad jidkaana marisa buu leeyahy. zakiha, ilow tahir oo khayrka ku barbaariyo, ku koriyo, ku kobci. anta khayru man zakaaha, cid daahir yeesho oo nadiifiso oo kobciso oo korisa, ilow adaa u khayr badan. anta waliyuha wa mawlaaha. idan ayuha alaxiba, matlabkan ah in bini aadamku ama qofka muslimka ahi siiba uu ku dadaalo diintiisu siday dhaqan isugu bedeli lahayd, aanay u noqon lahayn aqoon madaxa kaga jirta ee aqoon qalbiga ku jirta ay u noqon lahayd. inay caqliga gasho iyo inay qalbiga gashaa waa kala laba. qalbiga hadday gasho waxbay bedeshaa, caqligase hadday gasho
هو معلومات وواحد وقاتي إلهينا القرآن كوحكوت المامية يسقوا بحيه مسألة طريق خلوا لقى الراديين ونشرين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إلهي وحولي هدي لا هي إلهي ديرات كيسيا حريص كيسا قف بإذن كما الطاهرين بإلهي سبحانه وتعالى لكن ربا طاهرية تسكيية والزكاة وصمية عنده يسوي دونه سلاو غير أيها الأحبة إن وحنا تلمام من القرآن كآيات كسود دقي كور رمى يشقاد كأنبيادو أفرتا شيء يهين كوا ومهم سنة أي كم تهاي تسكية مركي حد قاعده ويسكو معنى النوضان حتى التقوى الله تلمام وإلهي وكا القرآن كقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وحنارتا وحقبت لك فوقين يا محي الأتقى كو إلهي وعبسي بدن عبسي دا كسوغان وكو حوله دا بحنا يقول تزكية نفس الرادينية تطهير النفس هذا إنه أنت كسور دافنا تزكية دي أنواع ده هي أهمية ده هي ربع الرسالة هي الرسوش شقدوا دينيتي وظيفة الأنبياء نيتهي حين نكون قبين إنها طريقة وحن لهم مرانا ما أها الطريقة بحسن وحن نصوص تشيريس يعني طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدى أنا هين ذاتك بربع تجارية لكن قيمة بدن ما سمايمس والغاية التكنيكس كفرسموين كقارقود قد تساعدك ولا تزكيك هنا يمركز وحن سمين سوى حكوتارته لكن تزكية مهلسي قدام إلهي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هل لنا تزكية وحي قبل متى توحيدك وعندي توحيد ويده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ويده ما تزكيه بيسو تزكيه ده إنه ربنا يشرع عدوك ورميسو كو وحا أصل التوحيد كإن الحقيقي سو والتوحيد كنفتيسه أيام بدنية هي معلومات مضحة قلها بدنوية هي توحيد عملية توحيد كمعلومات كمضحة قلها وين قرأته إلهي نكلية هي أسماء والصفات في علية هي يسوي دونيدا تنمامولو كلية لبريو آخرين يجرتو جنة النار إن يجران رسول إلهي مصادرين كتبين يجرتو ومسائل علمية وين قرأتها لكن توحيدك قرمو معنى سمينية مركي وحاس نقل كاغا كمغضان مراقبة إلهي مركات رميسانتين ألكو أركيو أسماء أنا يهين أسماء كلامي علم الكلام كسوغا والرمي يوكلونا دوغا مرحبتو أمورا مندلسة لكن أي نقطة أسماء هي الصفات نولش هذا معنى كبيرة إلهي هو عليم مركات براته إنه عليمي إنه خبيري وحي كان سنة ساينا دي يقين ستوحي سيني سحيين كو كالسوناتي شكي كسوغلي مركات براته إلهي إنه حافظ يهي رقيبي هاد كو كالسونان سينا تلسارتي سجا مركات رميستين قوي عزيز يهي وهاد رميسناني ساقورنا كتير سطو مخلوقين أنا وحباهين إذا توحيد كي رميسنين دا وحي سو بدليا سلوكا كاين وحكا بدلو دقنين ونقضو إن أنا نقنين معلومات مرنا ونواد معتزلة كانت لي جهمية كانت لي أنا تكون مرمنوني إنه يسو بدلو وحنا كان كاغا وحكا بدلي كرا وإيمان كردين كرا مركا سو نقنيا توحيد كاغي توحيد مريحي للربي دليني وحكا أنا بينو لنا هاي تزكية تاني وعبادات كدبتها وعبادات كالسيدو دي اللولا يماطا
إلهي مقاصد عبادات كم حكوت المامية كو مقاصد ودوا كم إن هذا أجر كهشة وكم إن الذمة هذا البرية شان آخر الوقوع أفسد مثلا سلام تكتي هدي واحد مبطلات أنا تلاقي من السيدي اللي يقولوا تكون هتسجل تكتي وإجزاء شيء ينفق هذا يكون عضو والغاية بآخرين الوقوع أفسد إن سلام دي ما تكمل لكن واحد كلا صورة قال هنا هذا أجر بني هرينا صورة قال كويل لها عشورها بيهلي أنا ما تصعها ما حاجة وهو صيصان تمر هدي 10% عدي هلي سوي 0% عشان أنا وسك صورة قال ما 1% ما 3% إذا صلاة دين وده تكني قفنا إنه 80% 70% 90% هلا كانوا ليش يسوي حبي كم بدليسا والله هو سلوكي سيدا كيسي بدليسا تسكية إنه شيء النبي يدو نقانيسا قفنا وحلقية ما هنا يوم كذا عضايا وصلاة دي آخرا ما تكنينا الله قصدين لكن إننا نلشي سفات كي الله بحنا كل هاي that's why إنه أركي إنه تتصفلوا الكنا كتيرة توقنا تتصفلوا الكتيرة خيامة بدن تتصفلوا الكتيرة بين شيء تتصفلوا الكتيرة وعبادة يوحي للربيع أنا يمرد عليه أنا تتصفلوا الكنا كتيرته وحي بلشة كودي بتيه وحي الدولة كودي بتيه وحي حاجة لا قاعد يبغى تسمرسه تتصفلوا الكنا كتيرته وهذا ندت كبوفتي ودول كبوفتي وما نويد تتصفلوا الكنا كتيرته والرب الشيء ويده وحسوي دارسته خيامسي تتصفلوا الكنا كتيرته وحرد عام وحويا تسكية النفس بمقام معلومات كأذكرنا إنسان ومعرفة دين سمي بدل أنت إلا الربي ما ينقولين نلاشى وحكة بدله سأوجد قف كم بني آدم كالله هذا وح ملك هجن معها ووح أمر ربوبة أو كرة أو قبعة أو حاجة ملك أو صعدة إلى حد إيجابي كران دتك عادي ما ها أنبياء يا الرسول كما ورميه قال النبي يقول هذا إلهي كل أرتان إلهي دارت دو فلنيا والله ساسي نقول سهدو إلى هذا إلهي وكرد يسدي وكل أرتين نقطة وما هي الله كعب سي يا محي سلوك سي الدقة كيسي بحد كان جالسي بني آدم كقارن حاجة كلا يصعد آدم لماذا ما هو يخدع حيوان كاين نقضان بل هو يسير دافع بل هم ضل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كإلهي ليه وشر الدواب إلهي وحدولك كرس عضائيك وشر بدل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم كإلهي ليه حلو عيسي ثم رددناه أسفل سافلين أسفل السافلين كم معنوي كمادي هيدا بي تتكبر بقى أسفل السافلين كم معنوي قاو النقضة أنت إلهي سفي عنه أبوري لكن نفتي سمرك الربوب ويدين نقضي بحر بني آدم قرنا أرنا في حيوان مدى درجة دي وإلهي القرآن قلت المامية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل إلهي وحكوت المام يقوك جهنم كوة قلية الجن ينسك كمدي وقار ما لها بني آدم كو انفورميشن وركا كو هلوردن أي حرنطي وحي خير ما يشكو قليلا وحرنطي قلبي يسوى ما فهمه إشي سوانا ما أركته دكتيسو خير كما مقشو انت بولي لكن شربك شقيميها انت بولي عقلي يا قلبي بولي شربك فوقيه دقيه ان بولي شربك فوقيه كواس الهي وحكوت المامي اولئك كالانعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل كواس هو حولها نوكلي تنبا الهي سبحانه وتعالى في ليا وقت صلاة دواقع لكن كلمة ديدواب كلمة سكاكوبا حكو كوبان تاي
bini aadamku xagga sarana wuu u kori karaa oo zakaadkaynu sheegaynay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim tutahiruhum min daa'i lbukli washux iyo wixii la nooca xumaay ka tahiraysa wa tuzakiihim kor bay yeelaysaa tuslixuhum way hagaajinaysaa dad acmaashoodoo dhabe markaa ay taskiya u yihiin oo ay nadiifinayso iyo dad acmaashoodoo dhami tadsiya ay u yihiin ay aasayso xabaalayso qofka muslimkaana waxaynu leenahay bacda shahaada waxa laga rabaa waa inuu naftiisa rabeeyo inuu naftan rabeeyaana waktay qaadataa bini aadamku maaha wax inta wax loo sheego dabeetana saasuu iska yeela xataa ma aha bini aadamku wax caqliga si toosa u adeegsada dadka baad maqlaysa kule caqlaan leena su-aal quraan ku weydiiyo bini aadamka dunida ku nool wax sigaarku uu fiican leeyahay inaad maqashay diin kama warramayo basharka caadiga iyo dadka iyo aqoonta iyo waxa bini aadamku uu leeyahay wax la sigaar baa fiican miyaad maqashay kacbayana ku dhaho wuxuu ka odhanaya wuu xun yihi oo haddaanay caqligaaga adigu meel waalantay markaa maxaad u cabaysaa haddaad ogtay inuu xun yahay asaad caqli qabto maxaad u cabaysaa ma waalid caqligaaga waad qabtaa yacni waanu raboobin go-aan qaadashadiisii baa xumaatay siduu naftan u rabayn lah markaa macluumo kastoo aada haysataa macnaheedu maaha inay dhaqankaaga ka muuqanayso inaad macluumada garanaysaa shayga inaad garanaysa macnaheedu ma aha inay dhaqankaaga ka mid noqonayso dhaqankaagu wuxuu u baahan yahay inaad israbayso wuxuu u baahan yahay dadka khayrka qaba inaad ku xidhanto wuxuu u baahan yahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad barato wuxuu u baahan yahay siiradii nebi maxamed inaad barato wuxuu u baahan yahay siyaru saalixiina wa taraajum alculamaa maxaa had iyo goor taraajimta culamada loo qoraa waxaa loo qoraa dhaqankoodan in lagu daydo manaaqib alculamaa iyo taraajim alculamaa kutubtan waxaa ka warramaysa waxaa loo qoray waxa weeyaan in sabtigoodii la barto hadyigoodiiyo say u dhaqmayaan in la barto si loogu dhaqmo waxaan leenahay markaa tawxiidku taskiyuu sameeyaa cibaadaadku taskiyay samaysaa adkaarta la samaynaya taskiyay sameeyaan waxaan oo dhan waa waxa nafta rabeeya laakiin waa marka aan macluuma ahaan loo qaadanin ee loo qaato dhaqan ahaan la ysku dayo in lagu raboobo naftu marka hore weecadkeedu wuu tiro badanayaa laakiin waxay u baahan tahay wakti in lala daba taagnaado culamada psychologyga waxay dhahdaan wax kastoo aada muddo musaawalayso muddo aada wadaaba marka dambe caadaadku ku biira caadadaada caadiga aanad dareen caadaadkaaga ma dareentid matalan iminka ina casarkii baxdaan oo shaah soo cabaan caada idiin noqotay kama fekertaan horta maxay ka faa'iideen inay maqaaxida tagno koob shaah ka dalbano qofna ma xisaabiyo ma isweydiisaan oo maqaaxidan inta la tago koobka shaah mad gurigaaga ku cabtay koob shaah hore duyi guryihiinii baa shaah yaalli waa baxaysaa markaa caada idinka noqotay inaad casarkii intaad xidhxidhato halkaasa tagto koob shaah ka cabto adigoo aan fakerin baad samaynaysaa dhaqamadoo dhan baa caado loo bedeli karaa markaa dhaqan kastoo aad rabto haddaad muddo nafta ku rabayso marka dambe caado noqonaya automatically aada u samayso haddaan ka fakerin aada samayso marka waxaa laga yaabaa carruurta yaryar inaynu idhaahno markaad cunada cunayso bismillah leh laakiin adigaaga weyne inaad iska ilowdo mar kasta waayo waanu ugu tirayn garay laakiin kaa yar haddaad isbuuc ku wado marka dambe dhaqankiisa ku biiraysa cunno marku kor u qaado bismillah bu iska odhanaya marka way ka baxday macluumo oo waxay gaadhay maxay inay caadaadkiisa ku biirto marka waxaynu u baahanay macluumaadkan madaxa ka buuxa iyo wacdigan tirada badanna laydiin sheegaya habeen iyo maalinba inuu macluumaad aanu noqonin iyo war la ogaadaye inuu dhaqan isu bedelo inuu isu bedelana wuxuu u baahan yahay nafta inaad muddo ku rabayso intay kala qabsanayso markay la qabsato wax fudud buu iska noqonayaa oo ay si caadiya ugu dhaqanto